deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoosena waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in maamulka deegaanka ay bilaabeen howlgallo ay ku xaqiijinayaan amniga deegaankaasi. wariyahayaga Cabdiweli Cali online oo u kurgalayay sida ay tahay xaaladda deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa isagu waxa uu booqday qaar ka mid ah xafiisyada mas'uuliyiinta maamulka deegaanka ceelasha biyaha. waxa uu ka soo diyaariyay warbixintan isagoo dhinacyada kala duwan ay warjinayeen. إبراهيم حاج حسين قدوميها دقمد اللفولة قبل كشبيلله هوسي أو أنكب بغضي حافيسكي سأكويا للديجان كعرش بيها أيا يونيفرسال تي في جوار ماي هرمارك كجرا الديجان كا هي دقيقة الدولي كا إما ملكيزو كفلنا يودي دقمد اللفولة قدومي أبدأ مع سمتعي دوام بانو صومك عاوي قرشياش هي أبدأ تتكلم عن مكان خفيف من قرشيات بعد تكسرين حكا يتقصدون حاسك يتقصدون وهذا كله وحان إسلامنا هاي واحد أنتوا بنات هذا وين نودي مثلا نوقف صورة قلي هذا شيء جناس تدا يودك ديجان كائنا إسفانسين يا مامولك وحن أركي شلا إن يسمى مامولك أيسن فانسين مركب مهمة هو قلت إن مامولك شعب كمان تودا شقينا يعني يدك دي أول معنا عيدا كي دقمة الجوجي قارنا دامسن يقار أنا دامسنين إنه إسكا يعني دتك ديجان كميد هو دي لكن عن سيستم دولة تكوجين كهي أداها يقصي أرت مركوب الرئيس وحن سكير نيو ذلك ديجان كا يا دتك يقصيص وحن هناي لما مر إن دتك ندرسين يسفهم عن سمين دتك وحن لقرتين ندرسين يعني هول في عنا هاي إن أنا كوفانسين إنه وعكوك أمنية maanta haddii aniga guddoomiye deegaanka aan ahay aanan ka warhaynin deegaankan inta population ku nool iyo waxa soo galaya waa kulli waxay ila tahay in guddoomiye ahaan iyo maamul ahaan inay noo wanaagsanin marka waxaan u sameynay ireen ay noo wadi doonaan insha Allah ka qabta hadda wadan Soomaaliya waxaan isleenahay in aan ku gaarsiin nidaam hadda dirisinta waxa dhacday koonfur galbeed yani meesha ugu horeysay waa anaga waxaan leenahay u maleeyaa inaan nahay xadkii xamar iyo Shabeellaha Hoose inaan qeyno saad la socotana xamar inta ugu ah waxyaana aan ku ogaan karno xaaladooda caafimaadka iyo macnaha duruufaha jira darteeda inaan sameeyno dirisintaas waana gaarsiin doonaa inta dhiman deegaankan ceelasha biyaha waa deegaanka asiirka badan dad Soomaaliyeed ku haystaan guddoon hadda cashuur sameeynayna wasaaradaha ay qusayso iyo maamulka sare waxaan sameyn doonaa dadka deegaanka wacyigelin waxaan ka aaminsanahay dhanka cashuurta waxay inaan kala talagelino dawladda gonooyinkii iyo waxyaalaha systemkii dadka deegaanka lagu gaartaan wal horta maamulkii arrimo kale ka muhiimsan jiraan arrimaha kale ka muhiimsan inaan xaaladeeda aan meel isku ogaano kadibna wax noo dhiman aan dhameystirano bulshada waxaan rajaynayaa aan ka codsanayaa inay horta maamulkooda garab istaagaan dawladda kuraasta kamid ah doorashooyinka in anaga lahaanaba oo deegaankeena la keeno waxaan rajaynaynaa inaan degmo buuxda noqono sida aan hay'adaha naga qosay oo naga sarreey aan la wadaagno ay noo sheegeen rajo fiican inay marka rajadaas waxaa lagu gaari karaa maamulka deegaanka iyo shacabkeena wada shaqeeyaan shacabku waxaan ku idinkan university waa mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Lafoole ayaa dhanka kale weydiiyay waxa ay ka qabteen ammaanka wadada isku xirta afgooye iyo ceelasha oo inta badan ay ka dhacaan qaraxyo la eegto mas'uuliyiinta ku safaya wadadan wax badan baa loo qabsoomay shaqo badan baa loo qabsoomay xagga amniga wadooyinkii la furo isgoysyadii la furo hameenkii macnaha waxyaalahan loogu balan roondooyin la suubiyo wax badan baa ku soo kordhin xagga amniga ciidanka ka qabtaan iswada amaanka waa gartay insha Allah ha maalintii ilaa hameenkii inta laga gaaray saqda dhexe ilaa 8 saac ugu danbeeyna ilaa ceelasha ilaa caalamada isbedel may marka arintaas markay xaslaysan ka dhacday aad bay ula dhacaan shacabkii waana soo dhaweeyeen waxay dhaheen arintan amniga in badan ka hor baan xafiiska guddoomiyaha ayaa ii sheegtay in ka haween ahaan qorshahoodu yahay in xafiis ay ku yeeshaan halkan si ay iskugu xirmaan oo wada shaqeyn u dhaxmarto maamulka iyo haweenka ku dhaqan deegaanadan amniga uu shaqeyna gudoomiye fiican hadda la magacaabay oo shaqeynayo oo maxaa la gudoomiyaha gobolka Najax uu soo magacaabay si sharaf loo shaqeynaya asaga iyo maamulkiisa iyo shaqooyin fiican ka socdo haween halkan xafiiska ku leeyahay haween hadda xafiiska waxaan u imid wasaas darteed waa in hawshaas aqal xafiiska aan ka qabtaa Cabdiweli Cali online
barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ariyay deegaanka ceelasha biyaha isagoo ku eegayay xaaladda deegaanka amniga nolosha biyaha iyo caafimaadka waxaana warbixinta ku jiray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo kan deegaanka ceelasha biyaha oo xaaladda deegaanka wariye Cabdiweli Cali online uga waramayay barnaamijka bandhiga